weydiiyay oo yiri niyo waxda akhriyaysa ma heesba ninkii amigo esta canton yuguri keeso wuxuu yiraahday ninka waxda akhriyaysa niyo ma heesba adigu waa isla jabsanay Spanish aad u burbursan oo aan ma garanaysaa khasab ku fahansiin inuusan hees ahayn wuxuu yiri si intendo amigo esta biblia war biblia ma aha bible na ma aha haddana mar labaad baa isla sii rafaadnay kama dambaystii markaan anigu xoogaa ninkii iga tagay baan waxaan siri de waa taqaana qofka hal abuurka waxba wax yaa ku dhaliye waxaan sida carfaado balmaad ما سوغانتي لا بيكسيتي الا مسخخدي iga dhax guuxguuxday illa ninkin waa iga tagay wax ma isla walwalaaqnay marka waxaan iri quraanka hamoodin heeso intii kaban loo qaraacay fanaan uu qaaday aayar quraanka hamoodin sheeko qof uu soo mala awaalay ama qoray ruux abwaana waxaan ku socdaa macnihii aayaadkii intaan ka faahfaahsanaa baan la beegsanayaa macnihii quraanka hamoodin faalo quraafad iyo quraanka hamoodin faalo quraafad iyo wargeysyo war iyo qaaraami beena ee ilaah qowlkiisi weeye run iyo ku qotoma xaqiiqo jibriil soo qaaday weeye rasuulkuna qeexay weeye salawaatullaahi wa salaamu alayhi markuu soo dagay quraanku xaq iyo kala qaaday baadil waa tuu nabigeenu qaylo intuu qow dheer la fuuray kufaartii reer Quraysha ku yiri quba sanamiyadiina ilaah geyrkii ka jeesta rumeeya qafuur rahiimka intay ku qosleen warkiisa rag baaba khilaaf diinta waliba qoorsaday rasuulka ku yiri kani waa qof waalan nin qaab daran waa ka maalin u qoonsaday oo sujuuda ma dheer qurunto uraysa rasuulka u saaray qoorta salawaatullaahi wa salaamu alayhi waxa qaabilay udgoone ku yiri ii qaba shahaado Abi Bakar ibn Quhafa radiyallahu anhu kolkii dilka loo qorsheeyay waatay ka qaxeen dhulkoodii godkay ku qarsheen naftoodii waatay qoloflay abeeso Abi Bakar ay qaniintay radiyallahu anhu Abi Bakar ay qaniintay ilmadii qurqulshay ka hortay waatay nabigeena qoysay sallallahu alayhi wa sallam waatay qaryadii Madiina si qiira la reer ansaara u qaadeen soo dhaweynta nashiida qofkii dhageysta dareemaya laab qabowsi nashiidada wada garanaysan baan malaynaya dareemaya laab qabowsi intay u qabteen hogaanka hashiisi raggii hor qaaday waxay qotosheen masaajid rasuulku markuu qudbeeyay sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri qowlka eebe qofkii raaca ma hoogo ee midkii diida qasaaray ee qalbiga ku daweeya diinta quraanka bartoo daliisha qiraada tajwiid ka yeela wuxuu idan farana qaata ka leexda wixii qallooca wuxuu yiri qaadirkeenu hablahu yaanay isqaawin dhammaan ha qarshaan jidhkooda wuxuu yiri qaadirkeenu xiriiri qaraabadaada xuquuqda ha goynin qoyska qadariyo waalidiinta wax dhibayaan loo baquurin wuxuu yiri qaadirkeenu qayaanaha geysan aadmi siniya ka qashaab xumaanta wuxuu yiri qaadirkeenu haddaad qani tahay hafaanin sidii qaaruun hayeelin ha quursan walaaladaada midkiinii maal qabeena haquudso wixii maskiina ha u qaybso wuxuu ku dhaamo wuxuu yiri qaadirkeenu sidii qaabiil hayeelin ha goynin qurux kaleento aduna ha qitaasintaada qof kale maalkii ha xoogin qof kale maalkii ha boobin xaraan ha u qiilsamaynin ha fulin miisaan qallooca wuxuu yiri qaadirkeenu qofkii doonaa tusaale qisada reecaad ha fiirsho Shucayb qoomkiisi eega qoraansada reer Tamuudna wuxuu yiri qaadirkeenu ha qaban amal ku hogaansha inaad u qayooto naarta wuxuu yiri qaadirkeenu qofkii wax ku yeela saamax hadaad qaldanto dabaabto asaad qiratood ogaatay ilaah qaniga u laabo wuxuu yiri qaadirkeenu adoonkayga u haquusan qushuuc la imow thawaabta wuxuu yiri qaadirkeenu markuu qayluushanayo qofkii akhriya tabaarak markii loo qaada ilka qabriga nuur baa u yaala wuxuu yiri qaadirkeenu qofkii laasima quraanka qiraadiisana hagaasha ka yeesha saaxiib u qaasa qiyaamaha maalinteeda qareenka u dooda weeye wuxuu yiri qaadirkeenu waxaan ku qabiray oraahda waxyiga eebiya quraanka marnaba ha u qaadan heeso
أنت وحكوك ما صدي أن قرآن كهمودين هسو waxaad moodaa inaan raacin karin maasadii aan ugu talagalay irshaad waxaan leeyahay aad baa u nasiib badan tihiin waalidiinta meesha soo xaadiray ee quruxda badan fikir khaldan baa laga haystaa Toronto ama Canada ama qurbaha baan dhahe waayo dadku wax la wada aaminsan yahay in carruurtu ay luntay way baadiyowday ajnabi bay raaceen Jamaican bay raaceen waxba kama jiraan waa fara ku tiris weeyaan dadkii intiisa wanaagsanaa badan carruurta artay iyo gabdhaha artay quruxda badan baa soo xaadiray munaasabada waxaan leeyahay ha lagu daydo iskuulkan ha la raaco carruurta ha la keensado yaan meelaha fikirka khaldan lagaga shubahay la geynin haddayba carruurtan aan arkay ay ahaayeen kuway wax soo bareen aad bay u mahadsan yihiin ayaga iyo dadaalkoodaba macnaheedu Ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu badiyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh